caqabadaha nolosha bini'aadamku mar walba ma aha mid siman oo fudud. Waxaa jira maalin aad dareemayso farxad, guul iyo horumar, balse waxaa sidoo kale jira maalmo aad dareemayso culays, jahwareer iyo caqabado. Qof walba wuxuu noloshiisa la kulmaa dhibaatooyin kala duwan, mid dhaqaale, mid qoys, mid shaqo, mid caafimaad ama mid dareen. Laakiin waxaa jirta xaqiiq aan la dafiri karin. Caqabada aad ka gudubto ayaa ah tan ku dhisi doonta kana dhigi doonta qofka ugu wanaagsan ee berrito. Caqabaduhu ma ahan wax laga cararo, ee waa qayb ka mid ah nolosha. Waxaa muhiim ah in la fahmo in caqabadu aysan ahayn mid laga cararo ama laga fogaado. Waxay yihiin qayb dabiici ah oo nolosha ka mid ah. Dadka dunida ugu guusha badan kama aysan fogaan dhibaatooyinka. Waxay bartaan sidii ay u wajihi lahaayeen, u xallin lahaayeen, una qaadan lahaayeen cashar walba oo ka dhasha. Caqabaduhu waxayna baraan samir, waxayna baraan fahamka dadka kale, waxayna baraan sida loo qiimeeyo guusha marka ay timaado. Qof walba oo maanta loo arko hogaamiye, hal abuur ama qof guulaystay wuxuu soo maray waqti adag oo uu islahaa ma awoodi doontid inaad ka gudubto. Balse waxaa lagu kala duwan yahay sida loo wajaho caqabadaha. Marka ay kugu timaado caqabad, waxa ugu horeeya ee muhiimka ahi waa inaad maskaxdaada hagaajiso. Dadka qaarkood waxay isla markiiba u maleeyaan in noloshoodu dhammaatay ama aysan jirin waddo kale oo ay ka gudbaan. Laakiin runta ayaa ah caqabad walba waxay leedahay xal. Ha niyad jabin. Inaad dhibaato la kulanto macnaheedu maaha inaad guuldarraysatay. Waa qayb ka mid ah safarkaaga. Xal raadso. Halkii aad ka eegi lahayd dhibaatada, ka eeg xalka. Mararka qaar waxaa jira dhowr waddo oo lagu xallin karo hal mushkilad. La tasho dadka isku kalsoon. Dadka waayo aragnimada leh waxay bixiyaan talooyin qaali ah. Ha u qaadan ceeb inaad talo weydiisato. Samirka iyo dulqaadka. Samirku waa hubka ugu weyn ee aad kula dagaalami karto caqabadaha. Noloshu ma ahan tartan adag, waa safar dheer oo u baahan dulqaad. Markaad ku jirto xaalad adag, samirka ayaa kaa caawinaya inaad ka fogaato go'aano degdeg ah oo khaldan. Dulqaadku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sugto waqtiga ku habboon. Waxaa laga yaabaa inaad maanta u aragto wax walba inay kugu adag yihiin, laakiin berrito xaaladaadu way isbedeli kartaa. Caqabadaha iyo kalsoonida nafta. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee ka soo baxa marka aad ka gudubto caqabad waa inaad hesho kalsooni cusub. Qof walba wuxuu leeyahay awood uu kula tacaalo dhibaatooyinka, balse mararka qaar ma ogid marka aad si dhab ah u wajahdo mushkilad. Waxaad ka gudubtay, waxaad ogaan doontaa inaad leedahay awood ka badan intii aad maleynaysay. Ku baraarug furaha ay caqabaduhu qarxiyaan. Mararka qaar inaad meelaha caqabaduhu ka taagan yihiin aad ku baraarugtaa waa shay aad muhiim u ah. Mararka qaar caqabaduhu waxay ku qasbaysaa inaad barato xirfad cusub ama aad furto waddo cusub. Tusaale ahaan, qof shaqadiisi laga cayriyay wuxuu bilaabi karaa ganacsi yar oo markii dambe noqda mid guul weyn gaaray. Qof kale oo dhaawac soo gaaray ayaa u bedeli kara khibraddiisa wax uu ku dhiirigeliyo dadka kale. Waa muhiim inaad isweydiisaa, maxaan ka baran karaa xaaladdan adag? Maxay i baraysaa? Su'aalahan ayaa kaa caawin kara inaad aragto fursad ku jirta dhibaatada. Ilaali caafimaadkaaga maskaxeed iyo jireed. Caqabaduhu waxay ku saameyn karaan caafimaadkaaga haddii aadan feejignaan. Sidaas darteed, marka aad ku jirto xaalad adag, la hadal qof aad ku kalsoon tahay. Qaado nasasho haddii ay lagama maarmaan noqoto. Cunto caafimaad leh oo jirkaaga taageera. Ku dadaal inaad seexato hurdo kugu filan.
marka jirkaaga iyo maskaxdaadu caafimaad qabaan waxaad awoodi doontaa inaad si wanaagsan ula tacaasho dhibaatooyinka.